wasiirada iyo madaxda bangiyada iyo dhammaan akhyaarta sharafta ee halkan joogta waan salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullah. salaan kadib dee wixii aan rabay inaan sheegaba meeshanaa laga sheegay. haddii aan bangiyada ammaani lahaa iyo waxay soo qabteen iyakaas sheegay waxay qabtaan, haddii aan wixii xukuumaddu ay idinla qaban lahayd oo mas-uuliyaddeeda ahayd aan sheegi lahaana guddoomiyaha bangiga dhexe ayaa hawshaas sheegay. marka wax badan oo idiin sheego ma garanayo. waxaan rabaa inaan idinku hambaliyeeyo, idiinna baarakeeyo shirkan bilowga idiin ah oo sanadlaha oo aan rajaynayo ilaah idinkiis inuu guulo uu dhaliyo. waxaan rabaa inaan aniguna adkeeyo bangiyada doorka ay ku leeyihiin ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha. de bangigu waxa weeye waa meeshii magaciisaba sida ka muuqanaysa xoolaha la dhigayay, laga qaadayay, haddana lagu soo celinayay. marka intii hadda la sheegay oo dhan ayuu ka qayb qaataa. maalgashi ma dhici karo haddii uusan bangi jirin, ganacsina dee lama samayn karo haddaysan bangiye jirin. marka aada iyo aad bay bangiyadu muhiim inoogu yihiin arrintaas. waxaa kale oo runtii wax looga mahadceliye ah bangiyadeena si gaara loo xusaa, iyaguna way sheegeen. waxa weeye waxyaabaha ay soo kordhiyeen ee ay adduunyada aan kula soconno amaan in badanba kaga horeyn, oo isticmaalka technolojiyadan oo EVC-ga ugu horeeyey oo ay ka mid tahay eDahabshiil oo hadda kuwii la sheegayay oo mastercard iyo visa cardka ay ka mid yihiin. dhammaan kuwaasi oo hadda waddankeena si saxa looga isticmaalo, meelo badan oo laga isticmaalin oo ayna ka jirinaa jira. marka horumarkaas waxaa keenay bangiyadeena keenay way ku mahadsan yihiin, aaday ku mahadsan yihiin. waxaa dee in la xuso mudan inay shaqaalaysiiyaan boqolaal Soomaaliyeed dhalinyaro ah oo aysan dee dowladda awood u lahayn inay shaqaalaysiiso oo sectorkaas ka shaqeeya, oo wax loogu mahadceliya ah. iyagana aada iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. waxaanu dhiirigelinaynaa in lasii horumariyo bangiyada. dhinaca iyagana waxaa xil laga saaran yahay ilaalintooda iyo taabagelintooda, iyo sida uu ka hadlay guddoomiyuhu in mar walba waxyaabaha ka dhiman in ay dowladduna xoog saarto sidii ay ugu siyaadin lahayd. marka dowladdu idinkay idiin shaqayn doontaa insha allah. mar walba waxay ka shaqaynaysaa waxa aada qabsateen siday usii horumarin lahayd oo wax ugu sii dari lahayd. waan ognahay innaga xaaladdeena adduunyada wax ka jirana waan ognahay. waxaan rabaa inaan idin dhaho xukuumadda waxay u taagan tahay ilaalintiina, hantideenna ilaalinteeda oo inaan ilaashano. si loo ilaaliyo waa in xayndaabyada lagu ilaaliyo, waa in ay xukuumaddu ay si fiican uga warhaysaa. meel kasta oo la isuga soo disayo, meel kasta oo warxumatashiilku wax ka hadlaynayo, meel kasta oo wax laga hadlaynayo, waxaan u baahannahay in aan ka hortagno. waxyaabaha ugu daran ee dee caalamku hadda waa ogtihiin waxa weeye faraha meel walba lagu taago, cid walba lagu taago, oo ay waxyaabaha money launderinka iyo lacag dhaqidda iyo lacagaha
laga yaabo inay u gudbaan dad aan habboonayn oo dambiilayaal ah waxyaabaha noocaasa waxaan u baahannahay in aan mar walba inagoo wada jirna inaan ka ilaashino hantideenna iyo bangiyadeenna inaan ka ilaashino sumcadda hay-adaheenna maaliyadda oo ay bangiyadu ugu horeeyaan bangiyadu waxaan u baahannahay inaan wada difaacno waxaan ku difaaci karnaana waxa weeye sida ay adduunyadu u difaacanayso si lamida inaan u difaacno ayaan u baahannahay waxaan ku difaacanaynaa waa inaan ku difaacno shuruuc waa inaan ku difaacno marka shuruucdaas aan ku difaacanayno waan ka fiirsanaynaa waa inay ilaalinta ujeedkeedu waxaa weeye waa ilaalinta hantida iyo sumcadda iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha dalkeena iyo dadkooda iyo dadka wax kaloo ujeedo laga leeyahay ma jirto ujeedada aan ka leenahay waa intaa maadaama ay ujeedadu marka ay caddahay waa inaan haddana ogaano laga maarmaan tahay inagu dowlad baa nahay waxaa jira wax waajibaad dawliyaa jira oo international obligationska ayagana waan dhowraynaa marka standardkaas baan raacaynaa standardkaasaan ku difaacaynaa marna micnaheedu ma aha in hantideenna yartahay ee noo soo koraysa aan wax u dhimayno macnaheedu ma aha sidaan hore u ballan qaadnay waxay stakeholdersku xaq u leeyihiin inay qaybo ka noqdaan tala ku yeeshaan ra'yigooda la arko markii la sameynayo shuruucda noocaas oo kale ah oo lala soo tashado grassrootka hoose lagula soo tashado ay wasaaradu la soo tashadaan sida loola soo tashado dowlad goboleedyada hay-adahooda iyo wasaaradahooda marka ganacsataduna waxaan rajaynaynaa ayaka oo aan il shaki qabta aan wax ku fiirinaynin oo taas aan sheegay hadafku uu yahay inay qeyb ka noqdaan ayaguna la tashiyadaas iyo outreachka la sameynayo inay qeyb weyn ka qaataan insha allah waan dadaali doonaa saaad ogtihiin muddadii 6 bilood hadda xukuumaddan jirtay sharciyo badan oo aada u badan ayaa la mariyey 7 ka mid ihii waxay nagu ahaayeen inaan marino waan ku khasbannahay annagoo ka eegayna danta guud ee ummadda soomaaliyeed maadaama ay ku xiran yihiin dayn cafis marka waa dhici kartaa in waxyaabaha qaarkood ay deg deg ay ku timaado way dhici kartaa sababtoo annagaba waxaan joojinay shuruucdii kale oo diyaarsanayd oo dhan waan joojinay waxaan dhahnay markay wasaaradihii especially ka shaqeynaya waxaan ku nidhi markay kuwan aad soo dhammaysaan ayaan kuwa kale aad u fasaxantihiin laakiin qof ama wasaarad ay sugayso xeer la xiriira dayn cafiska yaynan soo gudbin xeer kale dib ha u dhigto horta kuwaas dambe marka waxoogaa rush baa jiray oo arrintaas ku saabsan waxaana saas u sameynayno maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo in aan ka faa'iidaysano overkaas adduunyadu ay ina siinayso oo ah deymihii iyo ribadii idin dul saarayd iyo musiibadii baan idinka cafinayaa awlaadeenna iyo ilmaheeda iyo ilmahooda dambe iyo dhibaatada haysata inaan ka fududayno ayaa ujeedadoodu tahay waana midii aan u dhaaranay inaan maslaxada dalka iyo dadkan inaan ka shaqeynayn marka haddii ay jirto la tashi la-aan ama in aan sidii la rabay aan la isugu soo bandhigin waxyaabahaasa laga yaabaa inay ay keeneen waxaa kaloo lasii xadidaya ad ogtihiin dee baarlamaan baa ayaa jooga oo 2 aqala weliba oo u baahan in la marsiiyo marka waad garan kartaa marka muddadaas yartaa deg dega la iska rabo in ay
wasaaradda soo samayso in golihii wasiirada la mariyo waliba procedure dheer lasoo maro oo aan wasiirka cadaaladda u dirno marka hore iyo wasaaradda kadibna gariiqaan guud u dirno balse uu soo eego kadibna golihii xukuumadda loo keeno dood looga galo marka la mariyana in loo diro golaha shacabka kadibna muddo kadib iyo akhrisyo badan kadib iyo doodada dheer kadibna haddana mar kale check and balance waa marka waxay la tahay intaasoo Soomaali ah oo sii daba gashayna waxay sii jeegareeyeen wakiil way idinka noqon karaan cabsi ma jirto marka dagaal baa ku jirnaa marka qaarkood haddii sidaan horey naaga ogtihiin oo aan 3 dhinac kaga jirno 3 jiho oo midka laga reebo militariga ah midka labaadna uu yahay dhinaca fikirka iyo caqiidada midka saddexaadna uu yahay dhinaca financiga marka iyo maalgelinta saddexdaas oo arrimood aad u waaweyn ayaan u aragnay inay laga maarmaan tahay dadkaas cadowga in lagula dagaalamo marka maadaama jabhad weyn oo meelaha lagaga dagaalamaya ay tahay financiga dee markii xagga diinta lagala dagaalamayo culimadii waa isla qaadanay waa isla jaan qaadnay oo waa la socota oo dhinacii fikirka meel fiican ka mariyaa dhinaca militariga ayada shacabka Soomaaliyeed isla jaan qaadno ayakana waa kuwa ilaa iyo xardheer si caysanayo si buranaya nimankii dhinaca financiga waxaan rabnaa isla jaan qaadno marka waa dagaal aynu kulligood ku jirno shacabkeena Soomaaliyeed ku jiro oo saddexdaas jabhadood uu kaga jiro haddii marka ay mararka qaarkood ay dawladdu soo saarto waraaqo hadday soo saarto talooyin ama digniino hadday soo saarto meesha wax u socdaani waana isla wada garanayno uma socdaan warkaasi kuma socdo bangiyadeenna kuma socdo hantideenna kuma socdo nidaamkeena guud ee financiga systemka kuma socdo waxa uu socdo waa cadowgaas waxayna taladeedu tahay macnuhu waxa weeye inooga ilaaliya iyo in hantideena inaga nijaasayn intaas macnaha fariintu waa intaas waxaan intaas kaga gudbayaa maanta horta intaana ka gudbin dee marka waa inuu conclusionka waxaa weeye waan isla jaan qaadaynaa wixkii naga socdana ama canaanta naga soo baxdana idinkuma socotee hadda usaa ogaan inta labaad waxaa weeye waddankeenu dayn cafis ayaan rajaynaynaa insha Allah sanadkan wixii dayn cafis ka dambeeyana dee waxaa imanaya in waddankan la maalgasho marka waxaan u baahannahay in loo diyaar garoobo maalgashigaas annaga ka xukuumad ahaan iyo privatekeena oo bangiyadani ay kow ka yihiin waxaan u baahannahay inaan isla meel dhigno xaggaynu u dhaqaaqi doonaa dhinacaynu aadi doonaa ma dhaqaalaheenu xaggaynu aadaya xaggeen investmentiga ku sameynaa ma infrastructurekaan aadnaa ma wax soo saarkaan aadnaa xaggee inoo ah priority inoo ah waxaad ogtihiin waddankeena hadda climate change dhibaato fara badan baa jirta abaaraha jira webiyadeena imika wayba iska sii tabardaran yihiin marka dad badan imika waxay yidhahdeen Soomaaliya waxay u socotaa inay noqoto maritime state marka badda
oo aynan awalba aqoon ayay u badan tahay inaynu xataa biyaha ka cabi doono. marka alternative-ka jira waa sidaas, maadaama webiyadii halis ku jiraan. marka laba arrimoodba waa muhiim inaan ka fakarno biyaha dhulka hoostiisa ku jira, oo aynan kuwan webiyaasha keliya aynaan ka fakarin, iyo inaan badda usii jeedsano oo aan nolosheenii baddaas weyn aan ka faa'iidaysano, hadday noqoto biyo iyo haddii ay noqoto nolosha inteedii kalaba. waxaan rajaynayaa marka inaynu ka fakarno inaynu infrastructure-ka kolley midka ila fiican inaynu ka fakarno inaynu infrastructure-ka xoog saarno, dekada samaysano waaweyn. saan hore u sheegay, adduunyadii waxaan ka xigjisanay badda, innagaa ka xigsanay intaasoo adduunkana waa iskaga gudubnay dadki. marka waa inaynu u adeegna dadka. si aan ugu adeegnana waa inaan jidadna dhisna, dekadana dhisana. laakiin haddii aan baddiina kaga gudbanaano waxbana aynaan u samaynin, dee waa laynoogu imanayaa meesha. ad igaga gudban tahay wixii oo dhan, risqigiin adaa ku gudban, imana adeegaysid, waxba ima taraysid. marka waa su-aal adag. marka waxaynu u baahannahay inay ganacsatadanu iyo bangiyadanu ugu horreeyaan ka fakarno. waxaynu u baahannahay infrastructure-ka oo ay dekadahaas ku jiraan, airport ku jiraan, jidad ku jiraan, inaynu aada uga fakarno in dhaqaalaheenna malaha meesha ugu habboon ay ka bilowata inay meelahaas ahaan lahayd. marka fikirkiina wax badan waxaad gelisaan maxaa ka dambeyn doona markii dayn cafisku ay dhammaato, maxaa ka dambeyn doona. taasna inaad xooga saartaan ayaan rajaynaya insha allah ka fakertaan. si guud waxaan idinku hambalyanayaa mar kale shirkan. waxaan soo dhaweynayaa doodaha cilmiga iyo baybriska. waxaan rajaynayaa inaan insha allah guulaysano. waxaan rajaynayaa Soomaaliya ilaahay idinkiis inay ka gudubtay marxalad iyo adkaa. wax yar baa dhiman, waana inta nimankaas shaadiinta ay waddanka ku jiraan. wixii ka dambeeya ilaahay idinkiis waddankeennii oo dayntii laga cafiyey, innaga oo nabad helay, iyo dadkeennii oo barwaaqoobay oo dhammaantood insha allah shaqo wada helay, iyo dhallinyaradeenna khayr baan idin rajaynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.